hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo National Intelligence Service marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano NIS ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ilaa iyo hadda aan wax xub ah ama sahay military ah u dirin Iran tan iyo markii dagaalka uu bilowday 28 Febraayo. Sidoo kale Pyongyang ma aysan soo saarin wax tacasi dadweyne ah oo ku saabsan geerida hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran Ali Khamenei kaas oo lagu dilay duqeymo cirka ah. Haddaba arintan waxaa sheegay xildhibaan Park San-won oo ka qayb galay kulan sir ah oo warbixin ah oo ay hay-addu siisay xildhibaanada. Dhanka kale xildhibaan Park San-won ayaa sidoo kale sheegay isaga oo soo xiganaya xogta NIS in Pyongyang aan xitaa u dirin fariin hambalyo ah markii wiilka Ali Khamenei oo lagu magacaabo Mujtaba Khamenei loo doortay hogaamiyaha cusub ee ugu sareeya ee Iran. Dhanka kale iyada oo China iyo Ruushka ay marar badan ay soo saareen bayaan ku saabsan colaadda socota. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi waxay ilaa iyo hadda soo saartay baaliyiri oo kaliya 2 bayaan oo aad loo dejiyay oo aan kululeen. NIS waxay sheegtay in tani ay la jaan qaadayso dhaqanka cusub ee Pyongyang ee ah in ay ka fogaato dhaleecayn toos ah oo loo jeediyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Geesta kale hay-adda sirdoonka ayaa qiimeysay in si taxadar leh iyo in hadallada la miisaamay ay yihiin tallaabo loogu sii gogol xaarayo meel diblomaasiyadeed oo cusub gaar ahaan kadib shir la filayo in bisha May uu dhexmaro madaxweynaha Xi Jinping ee China iyo Donald Trump sida uu sheegay xildhibaan Park. Sidoo kale Kuuriyada Waqooyi waxay wajahaysaa culays dhaqaale oo waaweyn oo ka dhashay xiisadda Bariga Dhexe. Haddaba NIS waxa ay sheegtay in xildhibaanada in ay jiraan carqalado ku yimid helitaanka agabka warshadaha, qiimaha badeecada oo kor u kacay iyo sarifka lacagaha qalaad oo si xoogan u kacay. Dhanka kale Kuuriyada Waqooyi waxay sidoo kale isku dayaysaa in ay hesho sahay shidaal oo ku timaada ama ka timaada Ruushka sida ay sheegtay NIS. Dhammaadkii Febraayo shirkii 9aad ee xisbiga talada haya ee Workers' Party of Korea oo hogaamiyo Kim Jong-un wuxuu u muuqday in uu furay albaab yar oo u banaan wada hadal lala yeesho dowladda Mareykanka. Wuxuu sheegay in ay